waa galabnimo talaada taariikhduna ay ku beegan tahay 27 bisha Oktoobar sanada 2020 ku soo dhawaada warka galabnimo ee shabakada Sirta Media shalay ayay ahayd markii madaxweyne Farmaajo uu amar ku bixiyay in dad masaakiin loo adeegsado ciidamada qalabka sida si looga saaro guryaha ay ku noolaayeen laguna wareejiyo qoyska madaxweynihii hore ee Soomaaliya kaligii taliye Maxamed Siyaad Bare warar dheeraad ah oo laga helay degmada Afgooye dadkii la dhibaateeyay ayaa waxa ay dacwo uga tageen saldhigga booliska degmada Afgooye balse waxay kala kulmeen arrin naxdin leh taliyaha saldhigga booliska ayaa si cad shacabkii ugu yiri waan ognahay in la idin dulmiyo oo aad xaq u leedihiin inaad cadaalad heshaan laakiin kiiskani ma ahan mid aniga aan wax ka qaban karo waa mid ka socda dawladda federaalka Soomaaliya xitaa maamulka koonfur galbeed ma soo faragelin karo mid kamid ah wakiilada reer Maxamed Siyaad Bare oo hawsha burburinta u qaabilsanaa ayaa si jees u yiri shacabkii waxaad tihiin raxaweyn markaas ayaa dhul mariixan damcaysan waa la idin baabi'inayaa cid dhiigiina noo qabsan karta ma jirto ee isaga taga halkani hore ayaa loo ogaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Siyaad Bare maamulkiisa inuu shacab badan xasuuqay maanta mar kale markii mariixan talada dalka ay qabteen waxay bilaaween xasuuq hor leh iyo ku tagrifalka awoodda dawladda lama oga siday uga falcelin doonaan xildhibaanada beelweynta raxaweyn gumaadka joogtada ah ee uu Farmaajo ku bartilmaameedsanaya reer koonfur galbeed iyadoo la xasuusto weerarkii lagu laayay Baydhabo 13 qofood oo si nabadgelyo u banaan baxaysay raggii fuliyay weerarkaasi in la dalacsiyay lagana dhigay generaalo 2020 in shati dawladeed loo adeegsado arrimo qabiil waana si daro weyn oo soo hooyatay Soomaaliya loona baahan yahay in ay ka dhiidhiyaan guud ahaan shacabka oo wada jira dhanka kale madaxweynihii hore ee dawladii ku meel gaarka ahayd Shariif Sheekh Axmed iyo wabti uu hogaaminayay ayaa maanta ku wajahan magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe halkaas oo laga dareemayo soo dhaweyntiisa warar lagu kalsoon yahay ayaa sidoo kale sheegaya in saacadaha soo socda uu Shariif tagi doono gudaha magaaladaasi oo ay ka socoto qabanqaabada doorashada Hirshabelle sidoo kale ila wareejo muhiim ah ayaa inoo sheegay in madaxweynihii hore ee Soomaaliya uu ka qayb gali doono dhismaha dawlad goboleedka Hirshabelle gaar ahaan arrimaha soo xulista baarlamaanka labaad ee maamulkaasi oo dood xooggan ay ka taagan tahay Shariif ayaa sidoo kale kulamo kala duwan la qaadan doono madaxda Hirshabelle ee ku sugan magaalada Jowhar iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Hirshabelle oo muddo fog wajahaysa dhibaatooyin adag ayaa hadda ku jirta marxalad kala guur ah iyadoo lagu muransan yahay qabsoomida doorashooyinka maamulkaasi si kastaba safarka Shariif Sheekh Axmed ayaa ku soo aadaya xilli maalmihii u dambeeyay oo ku sugnaa magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya halkaas oo uu ka wadi kulamo siyaasadeed dhanka kale taliska hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya ee marka magaciisa la soo gaabiyo loo yaqaan NISA ayaa eedayn culus u jeediyay taliska booliska dekedda Muqdisho iyo kastamka wasaaradda maaliyadda Soomaaliya NISA ayaa sheegtay in dhinacyadaasi ay ka hor yimaadeen in baaritaan dhab ah lagu sameeyo alaabada kala duwan ee laga soo dejiyay dekedda si looga hortago in ay shabaab kala soo degto maadooyinka qaraxyada laga sameeyo iyadoo adeegsanaysa farsamooyin kale war qoraal ah oo ka soo baxay NISA ayaa lagu sheegay in haatan wixii ka dambeeyay aysan shaqo ku lahayn haddii mas'uuliyad amni darre ay ku timaado dekedda weyn ee Muqdisho balse wax laga weydiin doono saldhigga booliska dekedda laanta ilaalinta canshuuraha kastamka wasaaradda maaliyadda Soomaaliya iyo maamulaha furdida Muqdisho sidoo kale qoraalka NISA ayaa waxaa lagu sheegay in muddo fog dabagal dheer lagu hayo dhaqaalaha kooxda al-shabaab ee ka hesha dekedda iyo galaankalka ay ku leedahay in ay kala soo degaan maadooyinka laga sameeyo qaraxyada hay'adda ayaa intaasi raacisay in horey gacanta looga dhigay ilaa 10 konteenar oo ah maadooyinka qaraxyada laga sameeyo isla markaana ay doonayso kooxda al-shabaab inay kala soo degto dekedda magaalada Muqdisho iyadoo adeegsanaysa dad ganacsata ah oo loo xiray falkaasi si kastaba marar badan ayaa horey looga digay in laga hortago khatarta dagaalyahanada kooxda al-shabaab ee dekedda magaalada Muqdisho iyadoo oo dhawaan gacanta looga dhigay maado laga sameeyo qaraxyada oo loo waday kooxdaasi kuwaas oo weeraro iyo qaraxyo ka fuliyay gudaha dalka dhanka kale wasiirkii hore ee wasaaradda warfaafinta xildhibaan Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa markii ugu horeysay ka hadlay sawirkiisa oo sanadihii dambe aad loogu faafiyay baraha bulshada ay ku xiriirtay ee social media sawirkaas ayaa muujinaya Maareeye oo laba dhagax gacmaha ku wata waxaana laga qaaday intii uu ahaa wasiirka ganacsiga Soomaaliya xilli uu ka qayb qaadanaya ololaha nadaafadeed ee ka socday wasaaradda golaha wasiirada markii la magacaabay social media ayaa waxaa lagu baahiyay anigoo dhagax weyn wata oo dhahaya ra'iisul wasaare Roblow xar banaanka u soo bax dhagaxaasi aniga waxa uu ii sameeyaa dareen ah in aan ahay nin wadani ah oo dalkiisa nadiifinayay wasaaradda ganacsiga horteeda ayaan ka guraya dhagaxa oo nadiifinaya ayuu yiri Maareeye waxa uu sheegay in markii uu arkay sawirkiisa isagoo dhagaxaasi wata uu ku farxo balse uu ka xumaado habka loo adeegsado hadda waxaan ku fikirayaa sawirkaasi ma iska daysaa mise qandaraas baad ku bixisaa oo hay'adaha social media dhagaxaasi hala bixiyaa dahda ayuu yiri Maxamed Cabdi Xayir Maareeye waxa uu sheegay in markasta oo ay qof isqabtaan ama bixin loo magacaabay dhagaxaasi aad loogu baahiyo baraha bulshada aniga nin dagaal ma ahi afka ayaan ka hadlaa laakiin dagaalka ma aqaan ayuu yiri Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo si kaftana uga hadlay sawir uu gacmaha ku haysta laba dhagax kaas oo lagu faafiyay baraha bulshada ee ku xiriirtay internetka dhanka kale banaanbax xooggan oo looga soo horjeeda hadaladii islaam naceebka ahaa ee uu jeediyay madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa maanta ka dhacay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer boqolaal ka mid ah dadweynaha Burco oo isugu soo baxay wadooyinka waaweyn ee magaalada ayaa sitay boorar ay ku qoran yihiin ereyo ka dhan ah Faransiiska iyo madaxweynaha dalkaasi dadkaasi dhigaya banaanbaxa oo ay qayb ka ahaayeen ganacsatada magaaladaasi ayaa sheegay inay ku biireen ololaha lagu qaadacaya alaabaha Faransiiska isla markaana ay joojin doonaan alaabaha ugu yimaada dalkaasi
dadweynaha ayaa sidoo kale gubay sawirada madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron oo isaga maalmihii u dambeeyay ummadda Islaamka hawada u mariyay hadallo uu uga faa'iideynta Islaamka iyo nabigeena Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee. Macron ayaa waxa uu Islaamku ku tilmaamay diin qalalaaso ku jirta, isla markaana wuxuu ku dhawaaqay qorshe uu ku sheegay in uu kaga hortagayo Islaamiyiinta doonaya gooni u goosadka, taas oo ka cariisaysa guud ahaan ummadda Islaamka. Dunida Islaamka ayaa waxaa sare uga sii kacaya baaqi ku aadan in la qaadaco badeecadaha Faransiiska kadib hadallada gefka ah ee ka soo yeeraya madaxweyne Macron ee uu wacadka ugu maray in aanu ka tanaasuli doonin sawir gacmeedyada loola jeeda nabigeena Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee. marnaba diinta Islaamka ma ogola in wax sawir ah lagu muujiyo nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee, waana sababta keentay in hadalka Macron ay si weyn ugu gilgishaan uguna caroodaan guud ahaan ummadda muslimiinta. dhanka kale muran xoog leh ayaa ka taagan habka beelaha looga qaybiyay kuraasta guddiga doorashooyinka qaranka ee heer federaal qaybta ku soo aaday maamulka goboleedka Jubbaland. wadar ahaan maamulka Jubbaland ayaa waxaa ku soo aaday 4 kursi oo 2 kursi ka mid ah ay yihiin guddiga doorashooyinka heer federaal, halka 2 kursi kale ay yihiin guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka qaranka. 2 kursi ee guddiga doorashooyinka heer federaal ee maamulka goboleedka Jubbaland ayaa waxaa la siiyay beesha Ogaadeen oo 1 kursi ah iyo beesha Mariixaan oo 1 kursi ah, halka 2 kursi ee guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka la siiyay beesha Ogaadeen oo 1 kursi ah, Digil iyo Marifle iyo Jareer oo 1 kursi ah. qaar ka mid ah beelaha dega Jubbaland ayaa walaac ka muujiyay qaabka loo qaybiyay kuraastan 4 ah oo aan waafaqsaneyn hanaanka 4.5. beelaha Gaaljecel, Awrmale iyo Shiiqaal oo ka wada tirsan beesha Hawiye ayaa ku dhaliilay maamulka sare ee Jubbaland habkaan cadaalad ahayn ay beelaha ugu qaybiyeen kuraastani. sidoo kale waxay 3 beelood ku eedeeyeen maamulka Jubbaland inay si cad isaga indhatireen qoondadii haweenka ay ku lahaayeen kuraasta maadaama 4 kursi rag lagu soo wada qoray. 3 beel oo aan magacooda soo xusnay ayaa ka cawaday sidii loogu qadiyo kuraastan oo ay xaq u lahaayeen in ay qoondadooda ka helaan. sidoo kale ururada haweenka ayaa waxa ay ka cawanayaan in qoondadii haweenka uusan meel saarin maamulka madaxweyne Axmed Madoobe. dhanka kale ergeyga gaarka ah ee xogayaha qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Ambassador James Swan ayaa kulan fogaan arag ah oo uu sabtidii uga qayb galay aaladda Zoom-ka ku sheegay in qaramada midoobe ay rabtay nooc doorasho oo ka duwan midda hadda lagu heshiiyey. James Swan ayaa niyad-jab ka muujiyay rabitaankii qaramada midoobe inuu meesha ka baxay, balse uu ku faraxsan yahay in madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ay ku heshiiyeen khilaafkii doorashada. wuxuu sheegay in qaramada midoobe iyo saaxiibada caalamiga ah ay u ololeynayeen doorasho qof iyo cod ah sida ku cad dastuurka dalka Soomaaliya, hase yeeshee shirarkii ugu dambeeyay ee madaxda Soomaaliyeed ay ku yeesheen Dhuusamareeb iyo magaalada Muqdisho lagu saxiixay heshiis ku saabsan doorasho dadban. sidoo kale waxa uu xusay in heshiiskii dhawaan lagu gaaray magaalada Muqdisho ee ku saabsanaa doorashada uu taageero ka helay dhinacyo badan oo ka mid ah daneeyayaasha siyaasadeed ee dalka sida uu hadalku dhigay. wuxuu hoosta ka xariiqay in doorasho dadban aysan xal ahayn, balse u taageerayaan oo kaliya sidii Soomaaliya loogu badbaadin lahaa jahwareer siyaasadeed oo hor leh. waxaan aaminsanahay in Soomaaliya ay xaq u leedahay in ay doorato hogaamiyaasheeda walow ay suurtagal noqon weyso doorasho qof iyo cod ah. haddana waxaan ku rajaweynayaa in nidaamkan doorasho uu qabsoomo, mana jiro qof raba in Soomaaliya ay gasho jahwareer siyaasadeed ayuu yidhi. ugu dambeyntii waxa uu sheegay inuu ku rajaweyn yahay in la xushmeyn doono meelaha laga soo toostoosiyey nidaamka doorasho ee lagu heshiiyey oo ay ka mid tahay qoondada haweenka 30% ee ku matalaya baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya iyo qaabka loo sameeyo habraaca soo xulista oo noqon doona mid loo dhan yahay. intaasi waxay ahaayeen wararkii ugu dambeeyay ee ilaa iyo haatan ina soo gaaray. wixii warar dheeraad ah oo soo kordhana waxaad si rasmi ah uga heli kartaa shabakadda Sirta Media. adigoo wareerin warar sugan oo xaqiiqa waxaad ka helaysaan waa Sirta Media. adigo weelka ruma Sirta Media, Sirta Media, Sirta Media.